madaxweyne farmaajo maxaa lagu diiday yani qodobada loo abaalisa la sameeyey maxaa lagu diiday kan lagu ogolaaday oo la yaqaan hore ugu soo maray madaxweynenimo oo dib ugu soo laabtay markaa laakiin maxaa loo ogolaaday kanna maxaa lagu diiday anu waxay u buusbidaa laba bilood igu qaatay halkiisa waxay ahayd booshinka laga keenay xishe xasaf kaas ay ugu culis badnaa oo xildhibaano culus loo wateen oo mabda bay wateen ma ahayn qabiil iyo gabaadii bay ka hadlayn laakiin iyadoo ay ku qaldanaayeen waxaa weye eedihii la rabay la saaro madaxweynaha oo yeelan karayn ma yeelan karin hal mooyaane inta kale waxay ahayd waxay ku qabsan karaan ra-iisul wasaaraha qowmiyad ma dhihi karto qowmiyadda daarad qowmiyadda maya effectively haddaan runta kuu sheega waa governator haddaan fiirisana madaxweyneyaal maba aha kari saddexdaas la waayo dowlad mabatiid mana noqon karta dastuurkaana waxaa ku jira qodob dhahaya ilaa iyo inta laga ansixinayo oo laga ansixinayo dastuurka qaranka dowlad goboleedkooda waxay ku dhaqmaysaa keedii maalintuu baarlamaanka ansixiyo dowlad goboleed kasta waxaa qasab ku ah inay waafajiso dastuurkii dastuur qaranka waxay ka mid tahay shuruudda lagu aqoonsan doono ilaa habka dowlad goboleed oo baarlamaanka uu sii ansixid ma jirto ayagaas diyaarsadeen waxooda hadda waxaa siyaasiyaday jiraan qaanuuniyan ma jiraan dowlad goboleedyada qaanuuniyan dowlad goboleed jirta male laakiin markii hadda dastuurka u dhamaa dowlad goboleed kasta waxaa laga rabaa inay dastuurkeena dastuur keento inkiinisa maxkamada dastuur maxkamada dastuur muxuu fiirinaa wuxuu fiirinaa dastuurka waafaqsan yahay dastuurka qaranka sarkii kika guusinaya kuu cadaynaya oo leebsoo calaa baaray waa waafaqsan yahay marka calankeeda waxyaabay astaama ay haysato dastuurkeesu yahay shardi waa shuruud ka mid oo in la keena baarlamaanka ansixinay markaasay tahay dowlad goboleed jirta oo sharciga laakiin hadda waa jariixada loo aqoonsan yahay laakiin baarlamaanka sharcigu siiye aqoonsi buu siiyey mara waxay ku shaqeeyaan wakaalad oo martaa dowlad federaal waliba qowmiyad eritrea maxaa dhahay oromo qowmiyad habxaaro qowmiyad waa qowmiyad istagi annaka qabiilnaynahay hal qabiil marta dhow qabiil istaga soomaaliya ma inaan qabiilna laakiin qowmiyad ma dhihi karto qowmiyadda daaro qowmiyadda maya daarooda hawiye mushaarifee raxween tigri mirifne isaaq all these things waa soomaali waa qabaa'il laakiin nimankaas waa qowmiyad kamida qowmiyada hala kala saaco ay madaxweyne waa dhihi karaa madaxweynihii amcaarada beedi iblomaredi oroma maadaama madaxweyne oo qaranayna qabin oo hadduu joogan uu yahay miska protocoola laakiin effectively haddaan runta kuu sheega waa governator magaceed ay qaadan karaan waxaa waaye governator ama gudoomiye familigiisa waxay qaadan karaan wasiirka koowaad premier la yidhaahdo prime minister wasiirka koowaad first minister ama wasiirka koowaad waa ra-iisul wasaare ama waxay kala dooran karaan governator marka tii waxaa waaye etoobiyaanka camal sidii laga keenin laakiin madaxweyne waa qaab daran governator waay haddaan fiirisana madaxweyneyaal maba aha ra-iisul wasaare waay waa kabinet buu xukumaa nidaam kabinet uu xukumaa kabinetkii asaga madaxa marka waa ra-iisul wasaare ama wasiirka koowaad ee dowladkaas ama xaakimkii waa governatorial laakiin madaxweyne haddaad tiraado adag confederation ma noqonaya haddii madaxweyne waxaa la yidhaahdo waxay noqonaysaa confederation yani dowlado oo isku dabdarmaray gobonimada lagu sheegay maaha aniga reer hibloa ka dhashay iyo ninkiga buluuha maaha gobonimada lagu sheegay waa awood balse awoodda gobonnimada ee sharci dejinta awoodda gobonnimada ee fulinta awoodda gobonnimada ee garsoorka saddexdaas qeybooda gobonnimada lagu sheegay saddexdooda loo qaljinay midkoodna midka kale ma xukumo midkoodna midka kale kubata ma faragashan karo midkoodna midka kaligiisa ma sheegan karo gobonnimadu gudoomiyaha baarlamaanka for example ma dhihi karo aniga maya saddex meelood meel baan ka ahay oranay xukuumad saasoo saddex meelood meel anaa ah kaas ka oo garsoor saddex meel anaa ah yaa kulligeeda mateli kara kankii shacbigu mateli kaas fulintu mateli jaa kulligeeda hadduu la hadli karo yidhaahdo sovereignty ama gobonnimada Soomaaliyeed ayaa matala dhihi kara waa hay-adda afaraad saddexda hay-adda afaraad waa hay-adda hal qofka ka hor baa madaxweynaha
waayo saddexdan oo xiriiriyaa shaqada madaxweynaha marka lagu soo koobo waa isu duwaa gobonimada waa matalaad matalaad maxaa la dhahay shacbiga waa ilaaliyaa dastuurka saddex shaqays adoo kooban inta kale waxaa waye legdanka hoos baarlamaanka iyo xakuumadda ka dhexeeya madaxweyne haddii laga keeno booshin wuxuu noqonayaa anaa rabaa kale adduunyada lama xiriiri karo marse arbacin sano nadiif aldaawa soo garbax ayaa loo rabaa xukuumad saasoo kale iyada wax magaciisa laakiin waa jirtaa waa siyaasi waay baarlamaanka waa xildhibaanka waa xildhibaan siyaasi qabiil fadhiyaa laakiin axsaab siyaasadeed buu ku fadhiya koo dimuqraati waaye koo maaragtay hanta wadaag waaye waxyaala inkaas ayuu ka koobaya marka xisbigu ka tirsan yahay ra-iisul wasaaraha laakiin hadda maadaama xisbi aan jirin guddoomiyaha baarlamaanka waxaa waye wada dhexaadi waxaa lagu ku dadaalayaa banaanka inuu ku xalli hadisaan kenya oo kaletii oo madaxweynaha laga keenay mooshinka banaankan ku dambeyn laakiin haddii ra-iisul wasaaraha noqoto coday tegey haddayna isu tanaasulin labadooda in cod loo qaado waxay noqonaysaa in baaritaan la geeyo halkaas siyaasi waaye waa la kala qaab qabiilay ku raacayaan qaab si kale u shaacayaan qaab mabda yani nin walba umataa degaan buu wataraa inkaad ra-iisul wasaarihii u fun degaankaaga maka hor imaanaysa waa difaacaysaa sawaga marka ra-iisul wasaaraha badnaa waxaa la tagaa baarlamaanka la keeyaa laakiin haddii oo de oo kari karayo guddoomiyaha waxaa ku fiican marka muushikaas oo kale loo keeno inuusan hore ka dhigin islaafin oo ka biyaraysanay inuu isku dayo xaal mastuur ogal xaal mastuur bacdii inuu maxaa dhibsatay laakiin maxaa waxaa sursin karta madaxweynaha la shaqayn karin oo dhaliilo inuusan la shaqayn karin oo degaan laga bedel ama waxaa suurta xildhibaanada qaar badani ku kacaan yidhaahda waxaas wada xildhibaanadii oo mooshinka waday inaad waraysato xildhibaanada guddoomiye ah ku dhegeysanayaan waadsuwaalawadaa maxaa dhisteen lpt mooshin aa qabanaysa laftirkiisa waxaa ku yaal sababo asbaabtan waxaad analisaarinaysaa qaar waa u sheegaysaa waxaa waxmaya ka tanaasulan waad u midcinaysaa waa u baahankaa qaarad maxaad meesha ku dilaysaa waa dhamaateen qaarkood waxaa weye waxayna wax ka jiraan ra-iisul wasaaraha oo yaraysa gooni loo wada bixisa wareed arrimahaas noocaas ka saxmacaash haddii waa taas ay ku surta gasho okay waa ku sursan geli weys oo ra-iisul wasaaraha waa tanaasugaya kadib waa tanvi waa ku ardere adankiin an waxay u buufidaa laba bilood igu qaatay halkiisa waxay ahayd booshinka laga keenay xasha kaas ay ugu dhulis badnaa oo xildhibaano culus waa wateen oo mabda bay wateen ma ahayn qabiil iyo gawaadii bay ka hadlayen laakiin iyada waxay ku qaldanaayeen waxaa weye eedihii la rabay la saaro madaxweynaha oo yeelan karayn ma yeelan karin hal mooyaane inta kale waxay ahayd waxay ku qabsan karaan ra-iisul wasaaraha marka laba bilood camal igu qaatay eegeen aad bay martaa oo hataa aniga abukaat iisoo qabsaday yiraahdo markaan la xaajoonayn soo fariis marka ila xaajoonaya xabiiska looyarkooday wateen oo iyagana ila tashanaya kaasa igu laba bil bay igu qaadatay laakiin markii dambe waxaa kasoo baxay la fariistay analysis u sameeyey baarlamaan ma aana geyn naaga farmay markii kelmadaan marta qodob isoo qaam heer kadib qabsan kartaa madaxweyne mushrikin waxaa kortooltuura hal qodob soo haray oo lagu qabsan karay halkii qodob waxaa weeyaan qoraal banu adag wuxuu ahaa sharci waxaa aad u badnayd markaasi dadkoo military ah xoogeen dalka sabkatis oo isbaarooyin dhigan jiri jirin si u badna jidkan oo bay dhawaad warmero dhiganay lacawsta aruursada dhowr jeer oo kula xarbiyey marta dacwo maadaama uu yahay taliyii guud qalabsiga dhowr jeer ayuu isku dayay inuu xaliyo waxaa ka xog batay dadka oo meesha ka baxanis sharcigooda qaanuun boodku sameeyo seexay barlamaan ma keenin kii soo dhigtaba toogta wey madaxweyne farmaajo maxaa lagu diiday yani qodobada loo analisa la sameeyey maxaa lagu diiday kan lagu ogolaaday oo la yaqaan hore ugu soo maray madaxweynenimo oo dib ugu soo laatay markaa maxaa loo ogolaaday
kanna maxaa lagu diiday asagoo weli fadhiya oo awood leh laba hor yimid oo yidhi maya bax waa beegs yani siyaasaddiisa dood mida laga fiiriyey yani afar yaaba lagu diiday analystaad laakiin midalkaa sheekin midka waxaa ka mid ah waxaa weye dastuurka meel iska dhigay madaxweynihii hore kaa kibarmaj waxa uu ku baxay waxaa baraada beeshta hadda waxaa jira dowlad goboleedyo tii asagu ku dhaqmaayo afarsiba dastuurka meel iska dhigeen waxay rabaan ay samaynayaan afartan qodob oo analyska ku samaysay maxaa ka mid ah dastuurka kow saddexda kale beerka dhan waa samey laakiin nin ba aragtida oo leeyahay mogtahay haye laakiin aniga haddii lay weydiiyo ninkan maxaa lagu diiday ha ama ku diiday ama soomaalida waxay ku diiday analysis iyo atarkan waxaa numberkooda raas nidaamka siyaasaddiisa waxaa ka muuqatay nidaamka oo qori abduuf yani xoog lagu marinayo baanis ah oo laga dhadhaminayo kalitarisnimo inay ku socoto siyaasadaad ma loo qabe dastuurku wuu iska dhigineel ciidan wuxuu noqotay qodobka fagay ka mid ah oo meesha kas in lagu qodob oo kale waay laakiin hataa waxay u baahan tahay xogaa in la si garaa inay u baahan tahay laakiin dastuur qofkii meel iska dhigaa dowlis ma isaqayso ma asixayso waxaan wax lagu heshiiye waan qofka wuxuu filanayaa qofka soomaali kasta si kasta u gargarayso laakiin wareer qodobkaasaa ku diidan aad u gaftay haddaad tiraahdo isteebaa dowlad goboleedyada hadda dastuurka diidan yaa ugu la dhihi karaa tixgelin aad ku dhaqmi kooda hataa ku dhaqmi yaa ka mid a kuwaas dee koonfur galbeeda ka mid a walaali koonfur galbeed murtisun ku dhaqanto iyadana kuma dhaqanto kanta waa yeesho marmar waxaa waaye ciideenna kaada shugaysaa cadamaalooda wuxuu leeyahay hal soomaaliya sicili yaa sicinaaya baarlamaanka muxuu ku yani guntankiiba fadhiya meesha yoban kasta guntan uu leeyahay abusee baarlamaanka federaalka golaha shacabka waa markuu furmaayo 130 ku dhif haddii kale furmaa haddii loo qof dhamiyo waa la xiraa barnaamij waa dhaba hadda malar sanad baa siciri waa wasiiradiisa fadhiya kale xildhibaanadii waa ka cagiiba diideen gacantay taageen mar dhaba waxaan meesha wuxuu ku furmaayo farsambiyo kuntanka baarlamaanka way dhawo wuxuu ku furmaa 43 waray fadhis 22 baa fadhida meesha oo wasiir ah كعادة تاعي وصلت هنا كوما وزد شبر ولا وقعدت تاكل طلع سيقول لي إن عبد عدسن شب مو مدة بل هذا الإيمان كريم والإيمان كان ديويشن لحاول حق دستوري ده بغاز أو بضع عليه بوس أسد هذه كرا هو يبنيني لهذا سريع بدل